sida la wada soconaba magaalada Muqdisho maalimadii shalay waxa gaaray garaadada SSC Khaatumo kuwaasi oo habeenimada xalay ah ku hooyday Villa Soomaaliya haddaba maxaa ay ka wada hadleen garaadada iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulankoodii ku dhaxmaray Villa Soomaaliya madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo saaray qoraal uu kaga hadlayo muddo kordhinta uu sameystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba in laga guuro ra'iisul wasaare isma kana loo guuro madaxweyne ku xogeen isagana faal guud ayaan ka sameyn doonaa hadii ay bayiraahdo muuqaalka shirgale asxaabteena la wadaaga bal aan ku horreyn marka u horeyso waxyaabihii ahliimada xalay ee ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba garaadada SSC Khaatumo ee ka dhacay Villa Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay qasriga madaxtooyada waxa uu ku qaabilay qaar kamid ah isimada dhaqanka SSC Khaatumo oo maalimadii shalay ah soo gaaray magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho madaxweynaha ayaa hoggaanka SSC Khaatumo ee kala hadlay arrimaha laascaanood iyo waliba si guud xaaladda dalka meesha ay maraysa gaar ahaan gobolada SSC Khaatumo maadaama halkaasi dhibaato xooggan ay ka taagneed madaxweynaha ayaa hoggaanka SSC kala hadlay arrinta laascaanood iyo waliba guud ahaan xaaladda dalka ka taagan waqooyiga Sool Sanaag iyo waqooyiga dalka Soomaaliya intii kulankaasi u socday ayaa waxa la yiri madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka dhageystay isimada cabashadooda iyo waxa ay tabanayaan iyo waxa ay doonayaan intaba waa uu ka dhageystay aragtidooda ku aadan in xal u helida dhibaatadaas halka ka taagan maadaama madaxweynaha Soomaaliya isaga uu yahay madaxweynaha guud ee inta badan ah ilaaliyaha sharciga ee adduunkan wax ka dhageysanay waxa ay u sheegeen in halkaas ay dhibaato xooggan ay ka taagan tahay inuu ka dhacay xasuuq bini'aadanimo oo aad u xooggan isla markaana uu u geystay maamulka Somaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale madashaasi kaga hadlay ama adkeeyay in uu taageerayo ama baaqa dawladda ee ku waajahan taageeridooda ku aadan in mataqaana laascaanood ay xal loo helo isla markaana beesha caalamkana ay gaarsiiyeen haddana gaarsiin doonaan iyagana mowqifkooda uu cad yahay ku aadan magaalada laascaanood oo ah taageerida isimada SSC iyo waliba xal u helida arrintaasi madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in la raadin doono xal ka duwan xabad taasi oo ah in dhiiga daadanayo in la joojiyo arintana si wada hadal ah la sameeyo waa hadii dhanka Soomaaliya arrintaasi ay ka suurta gasho laakiin ma loo maleynayo in ay ka suurta gali doonto sida horeyba iyagu ay u cadeeyeen sidoo kale waxa la yiri madaxweynaha Soomaaliya oo kulankaasi ka hadlayay waxa uu taageero mug leh u fidiyay garaadada oo waliba markii uu ka dhageystay cabashadooda iyo waxyaabaha tabanayeen uu amray in iyagana markaan uu garab taagan yahay hil iyo hoona uu u noqon doono wax walba ay u baahan yihiin isagana ay ka heli doonaan waa sida hadalka loo dhigay garaadada ayaa arrintaasi waxa la yiri si weyn u qancay iyadoo waliba ay jirto arrimo hoose oo si hoose oo wada hadleen inta badan aan loo ogolaan saxaafadda in loo soo bandhigo SSC Khaatumo waxa ay gaartay guul aad u weyn tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyadoo ognahay dagaalka marka hore inuu ku dhextuur maantana uu marayo in hadda la dhisayo dawlad markaana ay leeyihiin SSC Khaatumo dawladdaasi hadda way bilaabatay oo booliskii waa la yagleelay militariga waa arkayseen ilaa 500 oo dhalinyar ah inay Soomaaliya soo qalin jabiyeen sidoo kalena iyadana waxa socdo oo iyadana arrintaasi barbar socda ayaa la yiri in la dhisay guddigii 33 oo la kordhiyay oo laga dhigay 45 kuwaasi oo noqon doono golaha baarlamaanka ku meel gaarka ee SSC Khaatumo kuwaasi oo waliba dhawaan loo gudbi doono in madaxweyne la soo xusho kulanka madaxweynaha uu la qaatay dhaqanka SSC ayaa waxa la yiri waxa si weyn uga xanaaqday Somaliland iyadoo waliba ku sheegtay in lagu soo duulay dhul weynihii Somaliland oo si iyaga hadalka ay u dhigeen isla markaana ay Puntland ku soo duushay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna garab ugu noqday balse aysan ka yeelinin iyagana dhulkooda ay xoreysan doonaan si hadalka ay u dhigeen iyagana laakiin arrintaasi waxa ay noqotay hal baad lagu lisay maadaama caalamka iyo dawladda Soomaaliya dhammaanba hadda ay wataan SSC Khaatumo isla markaana ay wax walba iyaga ku bixinayaan dhaqaalihii beesha caalamka ka iimaanayay ee inta badan
gobolada waqooyi la siinayay ayaa waxaa la sheegay in si toos ah loo siin doono SSC Khaatumo maadaama iyagu ay matalaad guud ay ka haystaan dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana halkaasi uu ka baxayo lacagihii horey loo siin jiray dowladii uu hogaaminayay Muuse Biixi Cabdi oo inta hadda uu joogay lacag aad u fara badan ba ay qaateen oo ay ka mid tahay lacagtii u dambeysay ee suuqa Waaheen lagu yabohay ee gaaraysay 12 milyan ee xilligii Maxamed Farmaajo dhabaadkiisii la siiyay intaasi haddaan kaga imaano xaalka guud ee magaalada Laascaanood oo uu degan yahay iyadoo waliba labada dhinacba la dareemayo colaad maadaama ilaa hadda wax xal ah aan la gaarin quburursiga waa fara badan yahay iyo argajugleenta inta wax la soo koobi karo ma ahan marka xilli walbana dagaalku ma taqana waa qarxi karaa labada dhinac mid kastana cudadiisa ay soo bandhigay hub aad u tiro badan iyo ciidamo badanna meesha aad baa loo soo dhoobay iyadoo waliba ay cudud halkaas la iskugu faanayo iyo gaashaanbuur nin kastaba uu keensanayo cid uu ka heli kara taakula military iyo mid dhaqaale intaba balaantagna habeen dhaweyd waxa ka dhacay Villa Soomaaliya kulan ku wada qaateen golaha amniga qaranka Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waa goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Xamse Cabdi Barre ayaa waxa isla qaateen in la sameeyo muddo kordhin oo loo sameeyo dowladda taasi oo ah dowladda guud oo noqon doonto in madaxweyne kasta uu imaado in uu hayn doono dalka 5 sano ayuu hayn doonaa waana xilli dastuuri ah qof kasta intaas haysan doona waxa kale oo la sheegay in iyaduna halkaas laga saari doono awoodda ra'iisul wasaaraha isla markaana la yeelan doono madaxweyne ku-xigeen haddaba arrintaas waxa ka hadlay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo waliba aad u soo dhaweeyay arrinta iyada oo yiri aad baan u qanacsanahay in dalka laga yagleelo doorasho qof iyo cod ah isla markaana laga guuro hanaanka hore ee baarlamaanka uu soo dooranayay teendada loona guuro qof iyo cod waxa kale oo soo dhaweeyay dalka in uu yeesho madaxweyne ku-xigeen isla markaana awoodan ra'iisul wasaaraha ee barbar socota inta badan madaxweynaha in iyadana meesha laga saaro taageero mug iyo miisaan leh oo isagana u muujiyay taasoo dadka ay aad ula yaabeen oo ay lahaayeen maanta halkaas hadii uu joogi lahaa Xasan Sheekh Maxamuud waa uu ka hor imaan lahaa balse Farmaajo kama hor imaan isagoo ku taageeray isagoo waliba doonayo in dowladnimada dalka inay horay ay u socoto Puntland ayaa ka hor imaatay go'aankaasi maalimadii shalay iyagoo waliba sheegay in habka loo maray muddo kordhintaasi ay tahay mid khaldan isla markaana iyaga aan laga taabagelin ama aan laga talagelinin go'aankaasna ay dowladda federaalka Soomaaliya iska qaadatay balse goboleedyada waxa ay sheegeen madaxweynaha Jubbaland oo kale markuu hadlay wuxuu yiri tareenkii Xasan Sheekh Maxamuud waa uu dhaqaaqay wuuna soconaya cid loo joojinayna malaha taasi oo laga wado waa dhiga hadal dadka qaar ay leeyihiin oo ku wado saaxiibkiisa hore ee siyaasadda Saciid Abdullaahi Deni haddaba si guud dalku waxa maanta hadda la filayaa amaba uu amray madaxweynaha Soomaaliya in loo dareero doorasho qof iyo cod ah isla markaana maamulada dhamaantood ay hoggaansamaan doorasho qof iyo codna ay qabtaan sidoo kale iyaduna waxa madaxweynaha ka go'an baa la yiri in meesha laga saaro ururka al-shabaab isla markaana wajigi labaad ee la dagaalanka ururka al-shabaab in la bilaabo taasi oo keenayso in si toos ah loo qabto doorasho qof iyo cod ah daawadayaal intaas aan kusoo kooyay barnaamijkan kooban ee ku dulmeerinay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya gaar ahaan kulankii dhexmaray ismada SSC iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud muuqaalka shirgareey saacadina